السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان dadweynaha daawana haya waa idin salaamahaya waxaan idin sheegahaya sida aad sameeynaysan ma fiicna mana qurux badna. waxaan idin sheegahaya bilaadanku gaf waa ka dhaca qaladna waa ka dhaca. waxaan aad sameeynahaysaan wax fiican maaha. gabadha muuqaaladeeda tirtira duliyo wax fahma qofka isticmaalaya muuqaalka gabadha ma qurux badna. gabadhu waa walaasha oo kale hadii ay qaldantana waa bilaadan, hadii ay saxan tahay ama hadii ay qaldanta kan ka duubana waa najis, dadka cayna hayana waa nijaas. wariyaa waxaan idin sheegahaya saas idin ma qurux badna, idin ma sharaf badna. isku xishooda. walaasha ay ku dhici kartaa berito, walaalka naagta oo qabay ku dhici kartaa, awowga bay ku dhici kartaa, iyada kuwa isqaba. hadhowtiga maxaad sheegaysaa? dadka ceebtooda lama fedfeedo. dadka ceebtooda hadaad fedfeedo berito maxaad sugaysaa? adiga bilaadan baa tahay, ilaahay baa ku samaystay, qalad baa geli kartaa, ceebtaada baa banaanka imaan karta. waryaada dad waaweynatiin, isku xishooda. daleeda muuqaalyada gabadha walaashiina ceebteeda qariya, nijaas yahay, dad wax fahmaya ma tihiin. ilaahay ka cabsada oo waa la dhimanahaya, naftaan adiga ma lihid. waryaa joojiya muuqaalada dadka ama muuqaalada gabadha aad duubahaysaan. teeda kale muuqaalka gabadha hadaad si yara mataqaanaa u fiirido, gabadha wax qaldan maysan samayn, keliyaato wax bay qosol iyo faruuryo baan arkahaya, wax kale ma arkin. ilaahay ka cabsada, joojiya, ka leexda gabadha. duliyow waryaa waxaan idin sheegahayaa san ma fiicna. soomaalida 98% waa jaahil, wax maqlahaya. waryaa markaad gabadha ceebteeda banaanka soo dhigahaysaan, masaas baa adinka idinla qurux badan. waryaa adigu gabar waa kula dhalatay, gabarna waad dhashay, waadna dhali doontaa, waadna ku dhashay. kada muuqaalkeeda aad faafinaysid, isku xisho. gabadha walaashaada caawa xaaladay ku sugan tahay ma matali kartaa markaad muuqaaladeeda isticmaalaysid. waryaa wax fahma, nijaasta loo waayey. duliyow waxaan idin sheegahayaa saan inaan idin fiicnayn Soomaaliyeed, oo ilaahay aad ka cabsataan. muuqaalkana like saar si uu u gaaro dadka jaahiliinta oo wax fahmaynin. waadna mahadsantihiin.